dabyaaqadii bishii Agoosto ee sanadkan ayay militariga Soomaaliya qaarkood waxay ka soo baxeen bariga gobolka Galgaduud kadib markii ay sameeyeen guduud muddo bil ah oo ay ciidanku nasiino qaateen waxaa la xaliyay tabashadii ciidanka madaxweynaha Soomaaliya ayaana la kulmay saraakiisha ciidanka kuwaas oo uu ku wargeliyay inay ku laabtaan goobihii ay ka soo baxeen meelaha muhiimka ah oo ciidanku ay ka soo baxeen waxaa ka mid ah magaalooyin dhiig uu ku daatay qabashadooda iyo magaalooyin nabdoona oo al-shabaab aan u dhaweyn kuwaas oo kala Ceel Dheer Galcad Masagawaay iyo qaybo kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan bariga cabashadii ciidanka ayaa la xaliyay waxaana la isku aruuriyay ciidamada ujeedkooduna waxa uu yahay in dhawaan ay ku laabtaan furmaha dagaalka saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in ciidanka isbedel lagu sameeyay diyaarna ay u yihiin xilli dhow inay ku laabtaan furmihii laga soo baxay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amar degdeg ku bixiyay in ciidanka sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku laabtaan goobihii ay ka soo baxeen ilaa ay haatan ma jirto goob ay ciidanku ay ka baxeen oo al-shabaab si rasmi ah ay u qabsadeen inkastoo meelaha qaar ay tagaan ayna ka baxaan iyaguba dhinaca kale diyaarado dagaal ayaa duqeymo xooggan saaka ka geystay aagga magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud deegaanka Cali Hele ayay duqeynta ka dhacday waxaana la arkayaa diyaarado dagaal oo dul wareegaya meelo badan oo ka tirsan aaggaas sida Ceel Hareeri Kalabeer iyo qaybo kale oo ka tirsan bariga Galgaduud